hadda madaxweyne xashin maxamuud hadduu asiga ku dhiis oo ku darsado oo wixii farmaajo ah kula dagaalanteen oo sameeyo sidii malaga badbaado qaran inay soo noqoto kala geel oo ka soo noqdo baraha bulshada oo siidka taagan mar labaad ma aaminsana anigu imaanay loo soo wado macnaha waa hadda waxaan aaminsanahay inay isku imaahayn maada waa maado xashin maxamuud markii labaad uu madaxweynaha dalka Soomaaliya laga wado waqtiga ku horeeyay ma uu isku dayin in uu sii joogo oo mataqaanaa waqtigii oo ku ekay dhaaf ma uu sameeyay tan labaad markii aan hadda farmaajo soo horjeednay iyo markii uu xukunka qabtay intaba asaa ka hadlayo taagnay ma joogo qofku waqtigiisa dhamaada ma joogo asaa joogay marka maba asaan ba hadda isku daygaas aan hadda ninkaas ujeedkiisu ma uu ahayn haddana waxa laga yaabaa naqshado cusub wadaho ah in qof cod ay gaarto bahashu qof cod daysantaadi ما waxaa laga yaabaa horta waxa qofkan waxa uu isku day oo wado ninku madaxweynaha dalka asaa xashin maxamuud ma ahan marka asoo isku day oo waday aan hirgelin ama hirgeli weyn in la yiraahdo ma sameey kartid ma ka dhici karto ma imaan karto waxyaabo ah lama rabo qofku waa loogu sameeyaa shaqada oo wato saada ul amriga dalka ah markii waqtigii la gaaro wadi waayo xasan waa wadi weys waqtigaas oo furanta laakiin inta ka sugaysa in la xaqtaa waxay u muuqataa in lagu haysto shaqadiisa